مالي waa mid ka mid ah dalalka ugu baaxadda weyn galbeedka Afrika iyo sidoo kale guud ahaan caalamka oo dhan. waa mid ka mid ah dalalka xidhan ee aan wax badan lahayn. waa dalku fadhiya bad ka badan 1.24 milyan kiiloomitir square, taas oo ka dhigaysa wadanka labaad ee ugu baaxadda weyn galbeedka Afrika iyo sidoo kale dalka sideedaad ee ugu weyn Afrika. Mali waa dal dhinaca waqooyi bari xuduud kala leh dalka ugu weyn Afrika ee Algeria. sidoo kale dhanka bari waxaa kaga beegan dalka ugu weyn galbeedka Afrika ee Niger. dalalka kale ee xadka la leeyahay waxaa ka mid ah Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea, Senegal iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Mauritania. Mali waa mid ka mid ah 11 dal ee dhaca saxaraha kulul ee ugu weyn caalamka, wuxuuna u qaybsamaa 3 gobol oo dabiici ah oo kala ah: 1. saxaraha qalalan ee waqooyiga, dhulka siman ee saxara lamoodka; 3. dhulka cawsku fidsan yahay ee koonfurta ah. magaalada ugu weyn dalkan ahna caasimadda Bamako waa mid ka mid ah magaalooyinka Afrika ee sida degdega u koraya, waxaana lagu qiyaasaa dadka ku nool 2 milyan. guud ahaan dhulka Mali ee baaxadda weyn, dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 19 milyan. sida guudna 50% dadka dalkan waxaa la yiraahdaa waa qabiilka Mande. 90% dadka Mali waa dad Islaami Sunni Maliki ah, waxaana la sheegaa inay diintu ka soo gaadhay dhinaca waqooyiga. waxaana Mali laga helaa masjidka ugu caansan uguna weyn ee Jene ee ay UNESCO u aqoonsatay inuu yahay dhismaha ugu weyn ee lagu dhisay dhoobo, waxaana la dhisay 1907. magaca dalkan wuxuu ka yimi boqortooyadii Mali ee uu aasaasay King Sudet Keita waqtigu markuu ahaa 1230 miilaadiga, kadib markii uu mideeyay qabiiladii ka ag dhawaa webiga Niger. Imbraadoriyadii Mali waxay ka weyneyd mideegaana, waxaana maasii 9aad ee boqortooyada Mali uu ahaa dhulmareenkii lagu magacaabi jiray Abubakarkii labaad, waxaana la sheegaa inuu xilka wareejiyay sanad kadib si uu u soo daah qaado xuduudaha badda Atlantika. waxaanay baadhiyaasha qaar sheegaan oo ay qabaan inuu ahaa shaqsigii daah qaaday amba helay dalka Mareykanka. waxaana Abubakarkii labaad xilka kala wareegay boqorkii dahabka iyo milixda ee Mansa Musa. waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay shaqsigii ugu taajirsanaa ee adduunka iyo aadanahaba soo mara abid inta la og yahay, waxaana la sheegaa inay hantidiisu gaadhay 400 bilyan. wuxuuna talinayay muddo ku dhan 25 sano, isagoo hogaaminaya boqortooyadii ugu weynayd Afrika gaar ahaan qarniyadii dhexe. wuxuuna Mansa Musa ka tegay raadad taariikheed oo masaajida u badan. sidoo kale xilliyadaas waxay Mali ahayd halka ugu qanisan galbeedka Afrika, waxayna noqotay magaalada Timbuktu ee Mali dhacda xarunta ganacsiga dahabka iyo barashada diinta Islaamka. waxa sida weyn looga xasuusta waxa weeye safarkiisii xajka ee 1324 miilaadiga, maadaama taariikhanada qaarkood sheegaan inuu xajka u ka haystay kumanaan ciidankiisa ka mid ah adoomo iyo waliba dahab. waxaa markaas dhulka galay qiimaha dahabka, maadaama oo Mansa Musa safarkiisa uu qayb ka ahaa 100 neef oo geel ah oo sida dahab, isla markaana uu dahabka u bixinayay hadiyad iyo sadaqo. taariikhdu markay ahayd 1803 waxaa Mali qabsaday guumaystihii Faransiiska ahaa, oo Mali waxay noqotay mustacmarad loo yaqaano Suudaanta Faransiiska, balse waxaa dalka Mali la soo noqday madaxbannaanidiisa 1960kii. saameynta Faransiiska wali waa mid ka jirta Mali, oo luqadda rasmiga ku hadlaanba waa Faransiis, laakiin waxaa jira 40 luqadood oo Afrikaan ah oo ay ku hadlaan dadka reer Mali. kadib xornimadii ayadoo dowladnimada Mali ay
curdin tahay. waxaa 1968 la afgembiyey madaxweynihii ugu horeeyey ee dalka Maali ee Modibo Keita, waxaana xilka la wareegay Musa Traore, wuxuuna xukumayay ilaa 1991. waxaana Traore uu xukunka lagaga tuuray kacdoon uu horkacayay oo uu soo abaabulay Amadou Toumani Traore, waxayna Maali kacdoonka kadib qaadatay nidaamka dimuqraadiga. kadib waxaa 2 jeer oo isku xigta doorashada ku guuleystay 1992 ilaa 2002 dalka hogaaminayay Alpha Omar Konare, waxaana isaga xilka kala wareegay Amadou Toumani oo ahaa hogaamiyey kacdoonka lagu riday Musa Traore ka dambeeyay 1991. sidoo kale waa shaqsiga xabsiga u taxaabay Musa Traore. Amadou waxa uu xilka la wareegay 2002. waqtigu ma waare, isagana waxa la afgembiyey oo xilka laga tuuray 2002 kadib markii ay ku kaceen askar u badan dhalinyaro oo ka soo horjeeday tayaxumada madaxweynaha dhinaca la dagaalanka falaagada ka soo jeeda dadka tawaariikhda ee waqooyiga dega. afgembiga iyo khalkhalka siyaasadeed waa kuwa sooyaal u ah magaalada amba caasimadda amba wadanka Maali hadda waxay ka mid tahay 10ka dal ee ugu faqiirsan caalamka. sidaas oo ay tahay waxay ku jirtaa 5 dal ee dahabka ugu badan laga soo saaro Afrika, oo waxaa ka horeeya South Africa iyo Ghana. dhaqaalaheedu waxay ku tiirsan yihiin beeraha iyo xoolaha. dhulka Maali boqolkiiba 10 waa kaymo, halka 90% ay yihiin beero, waxayna soo saaraan cudbiga, bariiska, galleyda. xoolaha ay dhaqdaan waxaa ka mid ah lo'da. maanta halkaas ayay inoogu joogaysaa. la soco qaybta xigta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.